soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta waxaan idinku soo gudbin doonaa qiso aad u xikmad badan oo dhexmartay nin waalan oo xikmad badan iyo timir. haddaba muuqaalkeena intaynaan u gudagelin waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka si dhiirigelin noogu noqoto una soo badano muuqaalada noocan oo kale ah. mahadsanid. maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin waalan waxa uu soo galay masaajidka. waxaa masaajidkii ku dhex jiray dad fuqaro ah. imaamkii masjidka ayaa u wacay ninkii waalnaa, waxa uuna u dhiibay timir. waxa uuna ku yidhi, dadkan u qaybi. ninkii waalnaa ayaa yidhi, ma waxaan dadkan ugu qaybinayaa timirtan qaybinta allaah ama qaybinta dadka? waxa uu imaamkii yidhi, qaybinta dadka ugu qaybi. ninkii waalnaa waxa uu soo qaaday weelkii timirta ku jirtay. dadkii oo dhan wuxuu wada siiyey min 3 timir. wixii kale ku soo harayna waxa uu ku soo celiyey imaamkii ayaa arrinkii aad ula yaabay. waxa uuna ku yidhi mar labaad, waxaad u qaybisaa qaybinta allaah. waxa uuna soo qaaday ninkii waalnaa weelkii timirta ku jirtay. midkii koowaad wuxuu siiyey 5 timir, midka kale wuxuu siiyey 10 timir, midka kalena wuxuu siiyey 2 timir, mid kalena wuxuu siiyey 1 timir. kuwa kale waxba muusan siinin. weelkiina waxa uu ku soo celiyey imaamkii. ninkii waxa uu dadkii u sheegay in qaybinta ilaahay ay ku jirto xikmad aad u yaab badan oo aan halkan lagu soo koobi karin. nolosha adduunyadana macno ma ku fadhin lahayn haddii dhammaan dadka ay wada heli lahaayeen waxa ay rabaan. hadduu allah subxaanahu wa tacaala dadka oo dhan qurux wada siin lahaa, qiimo maysan lahaateen quruxdu. haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka dhan cilmi wada siin lahaa, cilmigu qiimo muusan lahaadeen. haddii uu ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka oo dhan siin lahaa maalkana qiimo muusan lahaadeen. sirta ku jirta ayaa ah, ilaahay waxa uu qofba wax gooni ah u siiyey in qaarkood qaarka kale ay kaamil yeelaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kasta xaggiisa ka yimaadana xikmad ayaa ku jirta. haddii aan isku dayno inaan maskaxdayna gaaban ku ogaano wax kasta oo xaggiisa ka yimaada, macquul may noqoteen inaan fahanno. markuu ilaahay qof maal siiyo, xikmad ayaa ku jirta oo aynaan ogeyn. hadduu ilaahay qof faqiir ka dhigana, xikmad ayaa ku jirta oo aynaan ogeyn. haddii aan dooran lahayn wax kasta oo aan rabno, kadibna lana tusi lahaa waxa qaybka ah ee allah nala doonay, wixii allah nala doonay ayaa noo khayr badnaan lahaa. ilaahay waa caadil. waxa uu nala doonayna inaan ku qanacno ayaa habboon oo aan kaga mahad celinno. waxaan kaloo muuqaalka dhexdiisa idinkula wadaagi doonaa qiso kale oo cajiib badan. waxaa jiray wiil dhigta kollejka. waxa uu ku jiray ama marayay sanadkii 3aad. wiilkii waxa uu ahaa wiil wanaagsan oo waalidkiisa jecel. waxaa la gaaray xilliga imtixaanka. waxa uu aabbihii wiilka dhalay ku yidhi wiilkiisii, sanadkan haddii aad kaalinta koowaad gasho, hadiyad qaali ayaan ku siin doonaa. wiilkii waa uu dadaalay. xilligii natiijada markii la gaaray, waxaa wiilkii loo sheegay inuu galay kaalinta koowaad. wiilkii aad ayuu u farxay. waxa uu natiijadiisii u geeyey aabbihiis. aabbihiina aad ayuu u farxay. aabbihii ayaa mar kale ku yidhi, sanad dambe haddaad gasho kaalinta koowaad oo aad guul ka keento imtixaanka, waxaan isku kaa dari doonaa 2 hadiyadood oo waxaan kuu iibin doonaa gaadhi. wiilkii waxa uu dadaal badan u sameeyey sidii uu kaalinta koowaad ku gali lahaa, waana uu galay. intaas kadib waxaa dhacday in wiilkii uu yimid aabbihiis. waxa uuna ku yidhi, aabbo eeg natiijadayda, waxaan galay kaalinta koowaad. aabbihii ayaa aad u farxay. intaas kadib waxa uu aabbihii u soo taagay wiilkiisii kitaab qur'aan ah. waxa uuna ku yidhi, hoo hadiyadaada. wiilkii ayaa xanaaqay oo qayliyey. waxa uuna ku yidhi, ma waxaan baad i siinaysaa? ma waxaan baad ii ballanqaaday? gaari ayaad ii ballanqaaday. maxay tahay kitaabkan aad ii soo taagaysid? waxa uuna kitaabkii wejiga kaga dhuftay aabbihiis. subxaana allah. gurigii waa uu ka tagay. sanooyin kadib ayuu wiilkii qoomameeyey wixii uu ku sameeyey aabbihiis. waxa uuna ku soo laabtay gurigoodii. waxa uuna arkay kitaabkii oo yaala meeshii uu ku tuuray. intaa kadib xoogaa ayuu murugooday. waxa uuna isku dayay inuu kitaabkii akhristo. markii uu kala furayba waxa uu ku dhex arkay furaha gaarigii uu codsaday. hadda ka hor aad ayuu u ooyey. habeenkii oo dhan ayuu ooynayey. maalintii xigtay
waxaa ka istaagay hadalkii, lugihiina baarlaas ayuu ka noqday. Dhaqdhaqaaq ma jiro, hadalna ma jiro. maalintii oo dhan wuxuu noqday mid murugooda, habeenkiina ooya. qisadanna waxaan ka faa'iidaynaa inta aadan go'aan qaadan inaad ka fiirsato. sidoo kale qisadan waxay nooga digaysaa inaan waalidkeena ku xanaaqin oo aan u baarnimo falno. intaas ayaan muuqaalkeena maanta kusoo gabagabayn doonaa. haddii aad ka heshay like saar oo nagu soo biir. haddaad nagu cusub tahayna sabscribe oo gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada anaga aan soo gudbino insha allah. mahadsanid.